kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada youtube-ka Barduro ee magaalada Muqdisho oo idin soo gudbinaya allaha u naxariisto taariikhdiisa oo kooban Axmed Inshaar Olol iyo xilliga markaa uu geeriyooday waxaanadiyo jeer habeniyo dhara haddaan karaayo haka horala adigoo hortaydiyo carirtayda joogi adigoo hortaydiyo carirtayda joogi magaceyguse waa cabdirasaaq maxamed xasan cabdirasaaq Barduro allaha u naxariisto fanaanka Axmed Inshaar Olol waxa uu lahaa cod halaasi leh waxa uu ka qayb qaatay riwaayado dhowr ah iyo isagoo markaasi qaaday heeso caan noqday inta uusan noqon fanaanka waxa uu ka mid ahaa farsamayaqaanadii raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya sida ay sheegeen abwaaniin ay isku xirnaayeen Axmed Inshaar Olol allaha u naxariisto waxa uu ahaa ruux aad u jecel fanka taasna ay u fududeysay inuu ku biiro fanaaniintii markaa dalka ka jirtay kooxdii waa beri ayuuna markaa ka mid noqday waxa uuna geeriyooday 1992 kadib burburkii dowladdii militariga ee Maxamed Siyaad Bare waxayna sheegeen dadkii yaqaanay inuu ku geeriyooday magaalada Muqdisho isaga oo ka qayb qaadanayo aaska qof uu yaqaanay meedkiisa waxaana ku dhacay mid ka mid ah madaafiic ay isku tuurayeen maleeshiyaad ku dagaalamayay magaalada Muqdisho waxauna ka qayb qaatay riwaayadaha uu ka qayb qaatay ama kaalinta uu ku lahaa waxa ka mid ah ka joog adiga maahe oo uu lahaa Bare Maxamed Fiidow fanaaniintii kale ee riwaayadaasi ka dhex muuqday waxa ka mid ah Xasan Diiriye Faarax Saafi Ducaale Shankroon Axmed Sagal iyo fanaaniin kale sidoo kale riwaayad Banaandiriya oo la dhihi jiray Fikri Farax Jaceyl sidoo kale waxa uu ahaa jilaagii sheekadii Olol iyo hooyadii iyo dabcan qaar kale oo badan inkastoo Axmed Inshaar Olol uu fanka ku jiray muddo yar haddana waxa uu noqday heesihiisa dadku ay aad u jeclaysteen haddaba heesihii uu la qaaday fanaaniinta waxaa ka mid ah Saafi Ducaale hees la yidhaahdo laabdoo xantaad dawadeedii tahay dayraa ka dhigi dabnahaygu shidi ila dadaa dabnahaygu shidi ila dadaa dadka lama qasbo ragga laguma dayo wuxuu diidayay damacdheerida dadka lama qasbo ragga laguma dayo wuxuu diidayay damacdheerida wadardaarano sidoo kale Shankroon Axmed Sagal heeska la yiraahdo Ubaxii Jacaylka Ubaxii Jacaylka ada iga astaa amaaniyo bogaadi oo iga hor Ubaxii Jacaylka ada iga astaa amaaniyo bogaadi oo iga hor axadiyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray afkayga ka boobte adayga mudan abwaya wax garadka heesaha kale gabdhaha marka uu la qaaday Axmed Inshaar Olol allaha u naxariisto waxa ka mid ah hees ay wada qaadeen Sahra Dawo waxaana la yiraahdaa Yabaal Yabalba 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 la bayshil ka
fanaaniin kale ayuu sidoo kale heese la qaaday. inta ayaan dabcan ku soo koobaya taariikhda allaha u naxariisto axmed inshaar olol oo markaa isagu ka mid ahaa fanaaniintii soomaaliyeed ee fanka soomaaliya qayb ka ahaa ee geeriyooday. waxaa barnaamijkan markaas soo diyaarshay soo gudbiyey cabdisaaq maxamed xasan cabdisaaq barjuuro. nabadgelyo. warwariga maharao hamiyo khamiiba oy iga samayse khabar qabi shacayba hani biyaysto eryo igu saare خبر قبي شعيبا خاني بيستو اريو ايدو ساري